soo dhaweynta aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha Mustafa Cumar aad baan ugu faraxsanahay waana salaamaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha noo imaado haddaan shacabka baaraynahay aad baan xukuumadda u taageernaa madaxweynahan u taageersanahay madaxweyne horta Allah idin barakeeyo dhamaantiin cizi sharaf aad naga mudantihiin shaqa Allah idin way gudateen taasi wallahi shukran ala alwaajib in dadkina u imaataan meesha dibka dhacay imaataan halkeeda ogaataan wallahi shukran ala alwaajib laakiin waa in ka mahadcelinayna إلهي بقى مهد إسكاله إلهي بقى مهد إسكاله وحنا حسوس نقص عليسي أن أجنّي إن عن دولة لنا أن ضل لنا أن مدحوينه هي حكومة تركيا أن وحساب تما يسوي ضد كشعب كا وحساب تما يسأل لنا aad madaxweynaha iyo mataqaana waftigiisa ayaan aad iyo aad soo dhaweynaya ruuxantii maanta waa maalin aad farxad badan waxaan aragtay hogaamiyeynimo oo aad u weyn waxbaan ogaanaa annagu waa cusub baan noo bariyay shacabkiinuna maanta wada garab taagan yahay ma annaga kaalinta nagaga aadan inaan ku garab dhigno biyaha u qaadno oo dhaawac qaadno qofku bini'aadankan wuxuu ku noolaan karaa nabadgelyo hadduu helo bas uu noolaan karaa dalkiisana uu joogo dawladdiisana ay garab taagan waxay ka codsanayaan shacabaan idinku inaad kala shaqeysaan ciidanka iyo hay'adaha ammaanka inaad nimanka marka la fogeynayo horta seeliska gudaheena xogta idinku aad haysaan ciidanku ma hayo marka inaan seelka iska nadiifino shacabkana aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa guud ahaan gobolkan sida ay ciidanku garab istaageen idinkana waxaa idinka rabaa kaalinta shaqo ee idinku aadan inaad qabsataan anagu aan qabsano insha Allah bisheeda halkan warka yaala warka ka duwan oo cabsi jirin oo cadawgii 100 kilomitir naga durkeen inay noqoto yaa rajaynayna wixii horumar markaas ka sii doonaa jaalida